taariikhda magaalada Diridhaba Diridhawa hal meesha ay ku taalo. Diridhaba waxay ku taalaa bariga Itoobiya waqooyi bari ka xigta magaalada Harar. Waa magaalo istiraatiiji ah oo ku taala meel u dhow dooxooyinka Gurgure iyo biyaha Dechatu. Asalka iyo asaaska Diridhaba. Magaaladu waxay la aasaasay qarnigii 2 sanadkii 1902 markii la dhisay tareenka Jabuuti ilaa Addis Ababa. Markii la dhisayay jidka tareenka, qaybtii hore ee tareenka waxay ku dhammaatay Diridhaba sababtoo ah buuraleyda adag ee ka xigta dhinaca Harar. Sidaas ayaa Diridhaba u noqotay xarun ganacsi iyo isgaarsiin. Dadkii hore u deganaa. Ka hor intaan tareenka la dhisin, Gurgure oo ka mid ah beelaha dirta, gaar ahaan dirta Soomaalida, ayaa ahaa dadka asal ahaan deganaa deegaankaas. Waxay ahaayeen dad beeraley iyo ganacsato ah, sidoo kale waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalada Harar. Waxaa kaloo deegaanka deganaa Ciise, Gadabuursi iyo dad ka yimid Harar iyo Oromada deriska ah, balse Gurgure ayaa ahaa dadka ugu horreeyey ee deegaanka saldhigta. Taariikh ahaan yaa lahaa Diridhaba. Ka hor intaan la dhisin magaalada casriga ah, 1902 deegaanka Diridhaba waxaa lahaa beesha Gurgure oo ka tirsan beelaha dir ee Soomaaliyeed. Gurgure waxay deganaayeen Gota, Lege Oda, Awaday, Qobo iyo dhulka Diridhaba maanta ah. Taariikhyahano badan oo ay ku jiraan kuwa Itoobiyaan ah iyo Faransiis waxay qireen in Gurgure yihiin dadkii deegaanka lahaa ka hor dhismaha tareenka Faransiiska ee Addis Ababa, Djibouti. Doorka qabiilka Gurgure. Gurgure waa laan ka mid ah beelaha dir, waxayna door weyn ku leeyihiin taariikhda Diridhaba. Deegaanka Lege Hare, Melka Jabtu, Sabiyan iyo Gurgura Sheekh ayaa ahaa meelihii ay deganaayeen Gurgure. Gurgure waxay ahaayeen dadka ugu horreeyey ee magaalada ku dhisay suuqyo, guryo iyo goobaha xoolaha lagu kala iibsado. Xilligii boqortooyadii Ifat iyo Adal, Gurgure waxay ahaayeen qayb ka mid ah ciidan iyo maamulka xukunka Islaamka ee gobolka Harar iyo Dirdhaba.